حتى راشين كسبتالك له وكينا دتك درس كانوا سوق قاعد يجري خير الله سي marka isbitaalka laba bilaa ku jira markii aan ka soo baxnay furitaankaas aleekeen oo seexan baabiin waxaan leeyahay nacay sida aan naqday qadarti ilaahay wallahi muruga dareem iyo xanuun iyo kurbo mar dhawaa ka kabsada niideed ilaahay ku xiray inaan muxuu ahay saan ii qoran tahay ee igu dhacday hatta taas oo igu sameeyeen qadarta ka mid tahan aaminay gurigan aan hor taaganahay waa guriga magaalada Muqdisho ay ka degan tahay Dhibane Maryan Muxudiin Maxamuud oo ah gabar muddo 14 sano ah la xanuunsan xabad kaga dhacday dhabarka isla markaana naafeysay qaarkeeda dambe muuqaalka inta daawanaysaan waxaad ka bogan doontaan warbixinta Maryan oo dhameystiran gurigan ayay kula nooshahay reer ay qaraabo yihiin Dhibane Maryan Muxudiin oo ah gabar laba meel marka loo dhigo daadeeda qayb ka mid ah ku soo qaadatay xanuun ay sababtay xabad kaga dhacday dhabarka isla markaana naafo ka dhigtay qaarka dambe ee jirkeeda iyadoo markaasi ka soo baxday 7 arooskeeda waxa igu dhacay xabad dhabarkayga dhacday aniga aroos ka baxay oo gabar yar ah 22 maalna ninkii isqabna 3 toddobaad noo suuq siina adeeg ka doonayo xabadan dhabarkayga dhacdo wiifto meel ka imaatay la ka siina marka dibkaas markuu igu dhacay isbitaalkiisana la geeyay isbitaalka laba bilood aan ku jiray walahi caqabado badan iska jiraan qof aan xaadeed ku soo akarin maanta waxay nacda aan ka tagi karin waxay jeceshaa aan qabsan karin aan ahay kaadina ma ashkar saxradana ma ashkar oo dhaqaalaha wala qof gooni ma dhaqaalays ilaahay caawiyo ummadda iska la joogo waaga hore waalidkii walaalay la joogi jiray laakiin dad ehel la jooga mas'uulna ma tago ma tagi kari tunji ay sameeysan waa la keenaa waa qora markii aan qabayso tagana waa la qaadaa kursi kale lagu fariisiyo saan oo kale waa la qubeeyaa wala 14 sano ka badana umriga kala barkiisa soo Dhibane Maryan ayaa ii sheegtay iyadoo xanuunsan muddo 22 maalmood ah in ninkeeda oo ay markaasi ahaayeen aroos cusub uu ku nacay xanuunka isla markaana uu iska furay iyadoo aan hooyo iyo aabe toona u joogin magaalada Muqdisho isbitaalka dhakhtarka wuxuu dhahay marka dadkii ninka ayagoo fadhiyaan oo kale wuxuu dhahay gabadhan wadanka waxba loogama qaban karo hadii awoodin dibadda u qaato reerka marka weydiis ABC ehelku way joogeen asna wuu joogay waxay dhaheen waayo isku soo laabanayna markay guriga yimaadeen waxay dhaheen naagsaas naqatay hooyo waxba ku ma tareysay qarashna uma hayside mid fiican ka guursay iska dhaaf markii isbitaalka anagana ma awoodin xataa qarashka isbitaalka dad ay iga bixiyay inta markaas aan ku jiray hooyadeen anagana xamaaleysay ma eena awoodin حتى راشين كسبتالك له وكينا دتك درس كانوا سوق قاعد يجري خير الله سي marka isbitaalka laba bilaa ku jira markii aan ka soo baxnay furitaankaas aleekeen oo seexan baabiin waxaan leeyahay nacay sida aan naqday qadarti ilaahay wallahi muruga dareem iyo xanuun iyo kurbo mar dhawaa ka kabsada niideed ilaahay ku xiray inaan muxuu ahay saan ii qoran tahay ee igu dhacday hatta taas oo igu sameeyeen qadarta ka mid tahan aaminay Dhibane Maryan oo muddadii xanuunsaneed waxba loogu qaban waayay dalka gudihiisa ayaa loo sheegay in xanuunkeeda wax loogu qaban kara dalka Jarmalka balse nasiib darro iyada ma awoodo dhaqaale ay ku aado dalka Jarmalka saad hore u soo daawateen Maryan ma haysato wax hooy ah oo halkan ayaa hooy u ah waxayna la nooshahay reer ay markaasi qaraabo yihiin arinta yaab kale ayaa waxay tahay Maryan dhibkan marka uu soo gaaray muddo yar kadib in soojkeedii ama ninkeedii uu xanuunkan awgeed uu furay ummadda Soomaaliyeed waxa ay ka codsatay inay ka caawiyaan sidii ay u heli lahayd caafimaad dibadda ah oo ay u sheegeen dhaqaatiirta inaan dalka wax lagu qaban karin isla markaana ay u baahan tahay in dalka dibaddiisa gaar ahaan Jarmalka lagu daweyn karo xanuunkeeda walaal artilaayo wax bixiyo dadkana asaa caawiyo markii laga soo tago waxa codsan lahaay dadka madaxda dawladda iyo dadka Ilaahay wax siiyo islaamka Soomaali xataa madhahay kaligeed inay soo caawiyaan oo sida ameesha aan rabay oo higsanay ama la igu sheegin wax laga qaban karo liigeeyo xagee laga soo xiriiray hadii loo baahdo lagu caawiyo waxa laga soo xiriiraa furaashan
85 97 85. Ismaaciil Aadan Bariisa, telefishinka Soomaali Cable, magaalada Muqdisho.